تقول اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة آتية لا ريب فيها لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا. مدحوينها بوتلان مدحوينه كحجانك بوتلان مدحوينه كحجانك قلمدق قدومياشا بارلمانكا رئيس وزراء كحجانك دولة فدرالك كمرجاركا قولها وزير هذا حلبان هذا هير قبل إيو هير مامل قبلات إيو هير فدرال iyo dhammaan ahalada iyo qaraabada iyo dhammaan ka soo qaybgalayaasha janaazada walaalkeen marxuun Cabdullaahi Yuusuf iyo bahda saxaafadaba waxaan ku salaameynaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh marka ugu horeysa waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lahu ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma ilaahay subhanahu wa ta'ala ha u naxariisto walaalkeen marxuun Cabdullaahi Yuusuf ummadda Soomaaliyeed meel ay joogaan iyo ahalkiisa iyo qaraabadiisa si gaar ah uga tacsiyeynaa gaaridaas weyn ma taqaanaa dhacday maanta waxaan geynay gurigiisii ma taqaanaa rasmiga ahay ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu uga dhigo beeraha jannada mid kamid ah inuu uga dhigo ilaahay idankiisa aaskan qaran oo loo sameeyana inuu noqdo mid ummadda Soomaaliyeed midnimadeeda xoojiya midnimada ummadda Soomaaliyeed mar walba waa jirtaa laakiin xoojinay u baahan tahay inta waafaqsanna waa intaas marka waxaan leenahay aaskaanuna ha noqdo mid xoojiya qofku marka uu joogana waxbuu dadka taraa marka uu dhintana waxbuu taraa marka intii uu noolaa wixii uu qabo karo qabtay aaskiisa oo aan ka soo wada qayb galnayna waxaan rabnaa in daas abuuro bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh madaxda dowladda federaalka oo ku meel gaarka oo hogaaminayo madaxweynuhu Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo ka kooban golayaashii dowladda oo dhan kuwa xukuumadda kuwa baarlamaanka iyo kuwa garsoorka madaxda dowladda galmudug iyo sunna wa jamaaca diblomaasiyiinta ka kala socday wadamada asxaabta oo ay ka mid yihiin Yemen, Djibouti, Ethiopia iyo Suudaan isimada Soomaaliyeed oo maanta halkan isugu yimi oo gobollo badan ka yimi oo dalka dadweynaha sharafta leh culimaadudiinka ciidamada qalabka sida dhammaantiinba mar labaad assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh كل نفس ذائقة الموت إنا لله وإنا إليه راجعون ما أنت هل كان وحين كواسني عبد الله يوسف أحمد مدحوينه هوري دولة بنلان هي دولة فدرالكا وكم ملقاركا هلا بضبا عبد الله يوسف الله نحرسته وحين كواسني بنلان magaalada gaalkacyo oo ah gurigiisii hore oo adduun maantana noqday gurigiisii rasmiga ahaa oo aakhiro noqday maanta ilaahay ha u naxariisto ilaahay ha ka samirsiiyo intii uu ka tegey xaaskiisii iyo carruurtiisii walaalihiis eheladii kale dadka wax la wadaaga oo dhan dadka reer Puntland dowladda reer Puntland dowladdii federaalka ahaa oo madaxda ka ahaan jiray iyo dadweynaha Soomaaliyeed oo dhan dhammaantood munaasabada tan qaran aaska qaran oo maanta u samaynay Cabdullaahi Allah u naxariiste looma samayn inuu isagu ajar ka helo
waxaa loo sameeyey xusuus qaran inaynu maamuusno oo magac dawladeed oo maamuus qarana ku maamusno madaxdeenna markay geeriyooto oo ah arrin caalami ah oo dawladnimo weeye waxaan aad iyo aad uga mahad celinayaa sida ay u soo sharfeen oo ay u soo raaceen meydka madaxda dawladda federaalka oo ku meelgaarka oo hoggaaminayo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha maxkamadda sare ee dawladda federaalka ku meelgaarka iyo madaxda kale oo diblomaasiyiinta ah waddamada saaxiibka naga xamar fadhiya iyo ahlu sunna wa jamaaca madaxdeeda oo iyana soo raacay waxaan u mahad celinayaa maamulka galmudug madaxweyne ku-xigeenkiisii iyo odayaashoodii dhaqan iyo siyaasiyiintoodii iyo culimmadoodiina maanta halkan joogaan oo reer gaalkacyayana ah intaas oo dhan waxaan weyddiisanaynaa innagu haddaynu aas qaran aan samaynay oo maamuusnay oo calankii hoos u dhignay kii qaranka iyo kii puntlandba iyadoo aan xushmaynayno dawladnimada iyo madaxnimadii uu soo maray cabdulaahi waxaa wax tarayaa waxa weeye oo aan nin walba ka codsanayaa in la masaabaxo cafillaahi wa masaabax cafi iyo masaabax kulligeenaan masaabaxno waxaan kaloo codsanayaa innaga laftigeennu inaan ismasaabaxno bini aadan baanna intaa waxbaan iska sheegaynaa waa isxamanaynaa weliba siyaasiyiintu buro intaa waxbaa la sheegaya cid kasta waxbay tirsan kardhaa qof kastooo noole oo muddo soo noolaa waxbaa laga tirsanayaa waxna waa loo tirinayaayoo ajar iyo dhib labadaba waa lahaa marka qofku mar hadduu dhintay wax damoo laga daba tuuro oo loo sheegtaa waynayan jirin ilaahay ha u naxariisto annana waynu cafnay waynu masaabaxnay haddii cidii wax ka tirsanaysay innaguna aynu ismasaabaxno haddaynu wax kala tirsanayna dhammaanteen waxaan aad iyo aad mar labaad mahad ugu celinayaa iyo mar saddexaad dadkii aaskan ka soo qayb gala dhammaantooda meel kastaa ka yimaadeen waxaan mahad gaara u celinayaa ciidanka amniga oo amniga si wanaagsan u sugay guddiga qabanqaabada oo iyaguna munaasabaddan hirgelinteeda qaybta u weyn ka qaatay waxaan markii ugu dambeeyey ku khatimayaa ilaahay cabdulaahi yuusuf axmed hayna ka samarsiiyo cawil khayr qabana haynoo ku beddelo dhammaanteenba ilaahay caloosheenna ha isu soo jeediyo cuqdiga iyo xasadka iyo xumaanta soomaalida ku beerantay muddo badanna ilaahay ha ka saaro ilaahay wakhti kulul baan ku jirraaye raxmaddiisa haynoo soo dedejiyo ilaahay cadowga hayna ka qabto argagixisada iyo inta xumaanta ka shaqaynaysa oo soomaali ay ka degi weyday ilaahay hayna ka qabto ilaahay xooggeenna ha isu geeyo ilaahay midnimadeennii aynu ku faani jirnay iyo dawladnimadeennina ha inoo soo cesho ilaahu naga aqbal alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin marka ugu horraysa madaxweynayaasha dhammaan mas-uuliyiinta kala gedisan ee kulankan isugu timid isimada culimmada shacabka dhammaantii ciidamada amniga ilaalinaya dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu salaan ka bacdi innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun waxaynu isugu soo bannaan baxnay oo aynu qabuurahan u joognaa maantay aaskii walaalkeen cabdulaahi yuusuf axmed oo wakhtigii ilaahay ugu talagalay qaatay maantana aynu halkan janaasadiisii isugu nimid innagoo meelo badan isaga nimid sidaas darteed mas-uuliyiintii isimadii ikhyaartii meelaha kala fogfog ka timid ilaahay baa mahad leh ee waa u mahad celinaynaa intaas ka bacdi maadaama cirid la taagan yahay muddo badan hawshaan lagu soo jiray oo lagu dhafray
munaasabaddu tahay aas iyo tacsi waxaan ku koobayaa inaan u tacsiyeeyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed madaxdii iyo dadkii ay soo wada shaqeeyeen gaar ahaan xaaskii iyo carruurtii uu ka geeriyooday marxuum waxaan ilaahay uga rajaynayaa iyadoo loo baahan yahay maanta inaynu ducada badinno ilaahay inuu u naxariisto naxariistiisa qaaliga ah ilaahay inuu ugu deeqo baan ilaahay u weydiinaynaa erga ugu nahay oo maanta ciridda u taagannahay ilaahay ha u naxariista cabdullaahi innaguna dad islaamaynu nahay waa dhimanaynaa waxaynu isugu dardaarmaynaa meelaan joognaba qof xil haya iyo midaan haynba midnimada iyo wadajirka iyo cadaaladda in lagu dalo ummadda Soomaaliyeedna lagu hoggaamiyo